Joseph Kony oo ah masiixi asarraaca ayaa ku dhashay tuulada Ode ee bariga magaalada Gulu ee waqooyiga waddanka Uganda sanadku markuu ahaa 1961. Aabbihii iyo hooyadiiba waxay ahaayeen beeraley. waxaana aabihii loo odhan jiray Louis Obel halka hooyadiina ay ahayd Nura Outin. waxaana uu ka soo jeedaa qoomiyadda Acholi. waxa la rumaysan yahay inuu yahay ilmihii ugu yaraa ama kii labaad ee ugu yaraa qoyskiisa. xiriir wanaagsan ayuu la lahaa walaalihii markii uu yaraa, laakiin waxa la sheegay inuu aargoosan jiray marka ay murmaan. aabihii waxa uu aaminsanaa madhabta Kaatooliga halka hooyadiina ay ka rumaysnayd madhabta kale Protestanka ee diinta Masiixiga. walaashii oo ka weyn Gabriela Lacote ayaa wali waxay ku nooshahay tuuladii ay ku dhasheen ee Odek. Kony ayaan dhammaysan xataa dugsiga hoose, waxaana uu isaga tagay waxbarashada isagoo sanadkii 1987 aasaasay jabhadda Lord Resistance Army LRA. ujeedadeedu ay ahayd inay afkambido dowladda uu hogaamiyo General Yoweri Kaguta Museveni. waxaa la sheegay inuu ka cadhooday markii jabhadda National Resistance Army NRA ee uu hogaaminayay Museveni ay xukunka ka tuurtay madaxweynihii Uganda Tito Okello uu ka soo jeeday qoomiyadda Acholi. qaraabo dhowna la sheegay inay ahaayeen Joseph Kony intii uu soconayay dagaalkii duurka ee sanadii 1981 ilaa 1986. laakiin Kony waxa uu sheegtaa inuu u dagaalamo xorriyadda isla markaasina uu doonayo in Uganda lagu maamulo diinta Masiixiga. waxa uu isku dayay in Uganda uu ka baxsado sanadkii 1989, laakiin ciidamada dawladda ayaa qabtay waxaana ay sii daayeen sanadkii 1992 iyadoo loo arkayay in halis weyn aanu ku noqon doonin dawladda. 2 milyan oo qof ayaa ku xayirmay waqooyiga dalka Uganda markii uu bilaabmay dagaalku, waxaana dawladda lagu eedeeyay inay dad badan laysay iyadoo isticmaalaysay diyaaradaha qumaatiga u kaca ee qoryo ay ku rakiban yihiin iyo madaafiic. wargeyska ka soo baxa dalka Ingiriiska The Guardian ayaa sanadkii 2015 maqaal uu qoray oo kaga hadlay colaadda ka taagnayd waqooyiga Uganda ayaa waxa uu ku warramay in jabhadda LRA ay mas'uul ka ahayd dhimashada 100,000 oo qof, 60,000 oo carruur ay afduubtay, iyadoo habla aad u daayar la kufsaday, kuwa kalena galma joogto adoonsiyan lagu samayn jiray. qaar badan oo carruurtani ka mid ah ayaa faruuryaha iyo sanka laga jaray intii gacanta ay ku haysay jabhadda LRA. ciidamada dawladda ayaa Kony kula dagaalamay Uganda iyo dalka kale la dariska ee koonfurta Suudaan. heshiis sanadkii 2006 jabhadda iyo dawladda ku dhexmaray magaalada Juba ee koonfurta Suudaan ayaa dadkii qaxay u ogolaanayay inay ku soo laabtaan guryahooda. dagaalyahanada LRA ayaa tiradoodu markii hore ay dhammayd 300 oo askari oo intooda badan ahaa carruur la afduubay, laakiin hadda tiradooda waxa lagu qiyaasaa 100 askari oo intooda badan ka soo jeeda qoomiyadda Acholi oo ay u xuub siibteen hadda. Joseph Kony waxa la sheegay bishii November ee sanadkii 2013 inuu aad ugu xanuunsanayay magaalada Nisoka ee bariga Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. sanadkii 2006 ayaa maxkamadda dambiyada dagaalka ee ICC magaceeda loo soo gaabiyay fadhigeedu yahay magaalada The Hague. waxay warqad qabasha ay u jartay 5 xubnood oo ka tirsanaa jabhadda LRA oo lagu eedeeyay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadamaha. wasiirkii gaashaandhigga ee waqtigaasi ee Uganda Amama Mbabazi ayaa shaaciyay magacyada xubnahaasi oo kale ahaa Joseph Kony, ku-xigeenkiisii Vincent Oti, iyo taliyaashii LRA oo kale ahaa Raska Lukwia, Okot Odiambo iyo Dominic Onwen. afhayeen u hadlay ciidamada Uganda ayaa waxa uu sheegay in Lukwia la dilay bishii August ee sanadkii 2006. war BBC-du ay heshay ayaa isna sheegay in Vincent Oti isna lagu dilay guriga Joseph Kony bishii Oktoobar ee sanadkii 2007. Kony waxa uu sanadkii 2007 uu la kulmay ku-xigeenkii xogayaha guud ee qaramada midoobay ee qaabilsanaa gargaarka bini'aadanimo Jan Egeland. dadka taageera Kony ayaa aaminsan inuu yahay wali la barakeeyay, isagoo u sheega carruurta u dagaalantay in macatabka ku sawiran laabtoodu uu ka difaacayo rasaasta lagu soo rido. ninkani ayaa waxa uu guursaday 60 haweena, isagoo dhalay 42 carruura inta la og yahay. waxa uu aaminsan yahay inaanu samayn wax xadgudub oo ka dhana bini'aadanimada, laakiinse uu furinayo amar uu Ilaahay faray sida uu sheegay. dawladda Uganda ayaa dhowr jeer isku dayday inay disho Kony iyadoo xataa u adeegsatay askartiisa, laakiin laguma guulaysanin. Mareykanka ayaa jabhadda LRA waxa uu ku daray liiska ururada argagixisada iyadoo madaxweynihii hore ee Mareykanka George W. Bush uu sanadkii 2008 amar ku siiyay taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika magaciisa loo
loo soo gaabiyo Africom in ciidamada Uganda ay ka taageeraan farsamada iyo dhaqaalahaba waxaana markaasi bilaabmay howlgalkii fashilmay ee loo odhan jiray Gramba loona yaqaanay Operation Lightning Thunder oo soconayay sanadii 2008 ilaa 2009 howlgalkaasi waxa ku lug lahaa 17 la taliyaal ciidan oo Mareykan oo ciidamada Uganda ka taageerayay sirdoonka iyo farsamada waxa lagu guuleystay in Joseph Kony dib loogu celiyo kaymaha laakiin se lama qaban isaga hase ahaatee waxa laga soo badbaadiyay boqolaal carruur oo afduub u haystay sanadkii 2010 ayaa madaxweynihii Mareykanka Barack Obama waxa uu saxeexay sharci loogu magac daray hubka dhigista LRA iyo dib u soo kabashada waqooyiga Uganda aqalka wakiilada ayaa cod aqlabiyad leh ku meel mariyay sharcigaasi uu gudbiyay madaxweynuhu bishii Oktoobar ee sanadkii 2011 Obama waxa uu amar ku bixiyay in 100 askari oo Mareykan la geeyay Afrikada dhexe ciidankani oo hubaysnaa ayaa Mareykanku ay sheegeen inay yihiin kuwa farsamo ahaan u taageeraya Uganda $5 milyan ayaa la duldhigay madaxyada Kony Onwen iyo Odhiambo bishii March 24 sanadkii 2014 in ugu yaraan 4 kamida diyaaradaha loo yaqaan C/22 Ospreys diyaaradaha siiya shidaalka diyaaradaha kale iyo ciidan si gaar ah u tababaran ee ka qayb galeen howlgalka la doonayo in lagu soo qabto Joseph Kony 23 bishii March ee sanadkii 2012 ayaa midowga Afrika waxay sheegeen in 5,000 oo askari ay ku biirinayaan ciidamada la dagaalamaya jabhadda LRA ciidamadaasi ayaa ka kala socday dalalka Uganda Koonfurta Suudaan Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Congo dadka ku nool wadanka Mareykanka ayaan hore aqoon ugu lahayn jabhadda LRA iyo Joseph Kony midna koorintii aan la soo bandhigin barnaamijku sameeyay jilaaga la yiraahdo Jason Russell barnaamijkaasi ayaa waxa loogu magac daray ubadkii aan la arag waxaana markaasi kadib aqalka sare baarlamaanka Mareykanka ee Senate uu soo saaray qaraar lagu cambaareynayo Joseph Kony laguna taageerayo howlgalka Mareykanka Dominic Onwen oo la afduubay isagoo carruura markii dambana ka mid noqday taliyaasha sare jabhadda LRA ayaa isa soo dhiibay sanadkii 2015 isagoo markaasi ku sugnaa Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe waxaana arrintani khasaare weyn oo soo gaaray ay ku noqotay Kony Onwen ayaa maxkamadda dambiyada dagaalka ee fadhigeedu yahay magaalada The Hague ee ICC sanadkii 2011 waxay ku heshay 61 dambi oo ka dhana bini'aadanimada howlgalkii ka dhanka ahaa Kony ayaa la soo afjaray sanadkii 2017 kadib markii Mareykanka iyo Uganda ay xaqiijiyeen in laga adkaaday LRA siyaabaha la doonayay in Joseph Kony gacanta loogu dhigo ee mar dambe la ogaaday waxa ka mid ahayd in dambi oogihii maxkamadda caalamiga ee ICC ee warqadda qabashada u jaray Kony Louis Ocampo uu ka codsaday gabadha caanka kuwa jilitaanka aflaamta ee Mareykanka ee Angelina Jolie inay tagto wadanka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe la aaminsanaa inuu ku sugnaa Kony markaasi kadibna ay marti qaado iyadoo iska dhigaysa inay tahay qof taageersan jabhadiisa una diyaarisa casho uu ka soo qayb galo iyadoo markaasi la diyaariyay ciidamadii gacanta ku dhigi lahaa Joseph Kony xogtani ayaa dibadda u soo baxday markii Mareeg laga leeyahay wadanka Faransiisku ay daabacday waxaana soo xigtay wargeyska The Sunday Times ee ka soo baxa wadanka Ingiriiska Angelina Jolie ayaa sanadkii 2010 qudheedu waxay qiratay in hawshaasi ay ku lug lahayd oo doonaysay in gacanta lagu dhigo Joseph Kony oo ku lug yeeshay dambiye ka dhana xuquuqda aadamaha